annaga marka kumaana xisaabtamaynin meeshan xero ciidan baa ku taallo waa la idin qabanoo meel baa idinku xarayn kumaana xisaabtamayn ninkii aan biyaha iyo ugu maqnay sahayda nimankii reer baadiyaha markayna arkeen dowladdii suudaan oo militarigeedii meel uu degan yahay bay u tageen waxay yidhahdeen dad baa halkaa marmaraya waan saan u soconnay reerkii markaan ku dhowaanay meel yaroo buur hoosteeda kayn un baana lagaga soo dareeray waana la qabtay war nin baana halkan kaga nimid war qof walaalkayaa meesha ku dhibaataysan war ninkii lugaha kama socon karo waa la heli doonaa gala un bayna lagu yidhi halka konton iyo saddexdii qof ee cidlada nagu dhaqaaqay ee nagash ka kaana reebay yaa ku xaraysan meesha waan ugu tagnay meel ba ood saasay u oodan yihiin oodii baana la geliye ood ba afkana laga saaray sida xoolihi oo kale waa laydin ooday waana la ooday geeli waa la soo xareeyey waan qaylinay war nin baa naga dhimanaya war nin baa show asagii markuu cabaarna waayey ee naftii qabatay yuu sidiisii yuu ku saqay jilba wuu gurguurtay meeshanadii wuu dhaafay wuu socday xero militari oo kale oo xagga naga xigto cabaar noo jirtay buu ilaa habeenkii oo dhan buu show socday buu dalaq yidhi nasiib buu leeyahay diisa toogin oo ka baqan waa la istaaji carabiga marka asaga wuxuu ku fiican yahay nin diinta aad u yaqaan u ahaa carabigii buu garanaya naxwihii buu tuuranaya waa saas maxaad ahayd istaag baa la yidhi oo markaasuu yidhi soomaali baan ahay waan lugahan ka socon la'ahay way qabteen dawooyin bay siiyeen awr bay soo saareen barti bay noogu keeneen ilaa muddo 8 maalin markaan barti ku jirray oo waxaan cunno nala siinayay oo laakiin xabsi aan ku jirro musqusha aadayso iyo oodaa kugu wareegsan bas oo rag iyo gabdhaba leh laysdhex seexanayo yaa gaari weyn oo baabuurtii candamiilayaasha aanu naqaanoo kala abaana loo keenay ayaga loori bay yidhahaan suudaantu loorigii baana lagu daabulay waana la kaxeey meel gobolka kasala ka tirsan oo boort suudaan magaalada u badda leh meel u dhow baana la geeyey meel walboona la geeyna waa xelo militari xero ciidan baa afkana lagaga shubay 3 gabdhood baa marka nagu jira raggii wixii rag ahaa hal qol oo weyn baa afka inta lagaga guray yaana lagu soo xidhay gabdhuhu Soomaaliba gabdhuhu waa Soomaali 3 gabdhood saddexda gabdhood guri afka ka bannaan yaa la geliyey waxay ugu tala galeen annagu markaan seexanno gabdhaha in mid loo soo qabsado horta ilaahay baa wixii aanan ogeyn og gabdhihii kolba mid waa la jiidaa tii u dambaysay yaa marka qaylo bilowda ana zawaaj ana maxay waa umaan maqale macnihii xaas baan ahay waalay qabaa hooyaan ana ummu way dhawaaqday hay waxaad gudbinay leedahay markaan maqalay ana zawaaj waalay qabaa iyo ana ummu yaan hal mar albaabkii gow waan soo baxnay oo gow waan garaacnay cabdullaahi halkaa u kaadi daawadayaal albaabkii ayaa lagu soo jebinayaa gaba ay doonayaan inay soo jebshaan waadna maqlaysaan xaaladdu meesha ay marayso sidaas awgeed ayaan barnaamijyadan u samaynaa gabadhaas waxa ku dhacaya iyo kuwa kaleba waa hagaag ku soo cabdullaahi markaan qayladii dayn weynay ade 53 nin oo qaylinaysa qof xeradii dhannayd baa isla soo kacday labadii kale ma joogaan mise waa tan keliya wax hadda qaylinaya labadii kale marka ayadu waxay noo sheegtay in la bixiyey oo meel la geeyey laakiin gabadha markii la soo gaaray markeedii weyta qaylada bilaabaysa oo dagaalka bilaabaysa oo odhanaysa waa lay qabaa hooyaan ahay buuqa bilaabaysa waxay ahayd gabar rabiixiniyooda tolkaa kuma gabe afkaagii ku gabin baa soomaalidu tidhaahdaa gabadhaasi taasay kaga dhabaysa waxa is tiri bal mar haddii lagu qalanayo dadkaaguna ha ku maqlaan meeqa jir bay ahayd da ahaan markaad eegtay saddexdoodaba 3 gabdhood haddaan dembi iska ilaaliyoon qiyaaso waxaan u malayn wax 30 gaadhay kuma jirin gabdho yarar bay ahaayeen waa yahay afkay qaylo ku shubatay albaabkii waa soo jebinaysaan idinkuna annaguna markaan gabadhii qayladeeda maqalay annaguna garaac albaabkii iyo buuq baa isku darray
waaye askartii kaloo dhan baa soo dareertay markaan gabadhii qayladeeda maqalay annaguna garaac albaabkii iyo buuq baa isku darray waaye askartii kaloo dhan baa soo dareertay maxaa idinku dhacay maxaa dhacay gabdhahanagii baa la xoogayaa gabdhahanagii baa la xoogayaa gabdhihii baa la soo daayey annagii waxaan nidhi albaabkaana laga furay aamusaana la yidhi ma aamusaynaan nidhi bannaankaas yaan annagiya gabdhahaba wada seexanaynaa qol ma gelino nin waxaana loo wacay ayaga ciidanka haystay oo nin wanaagsan ahaa oo nin wadaad oo muslin ah wuu naloo yimid waxaasaa nagu dhacaan ku nidhi gabdhahanagii waa lagaga qaylisiiyey waa la kufsan rabaa marka annaga habbi kuma nihin baan ku wuri in annagana qolna lagu xidho gabdhahanagiina qol gooniya inta la geysto deedna lala babaxo haye buu yidhi bannaankaasuu gogol weyn noo dhigay gabdhihiina qayb halkaasoo kale uu dhigay seexdii buu yidhi wakaasi halkaa iska ilaashada adiga iyo intii ka shaqaysay saxib waa kaaga mahad celinaa difaaca gabdhaha Soomaaliyeed ee hooyooyinkeena birmageedyada ku soco subaxii markuu waagu bariyey baa haddana gaari kalena la saaray gobolka Sale la yidhaahana la keenay gobolka Sale la yidhaahda marka meel Waadi Shariifeen la yidhaahdo waxaa ku taala UN ma aha laakiin macna UN oo kale hay'ad malaha Suudaan hoos tagta oo UN ka tirsan weeyaan yaa loogu talagalay inay dadka magacaanta iyo diiwaangelinta iyo raashin yaro waa markaan meeshiina la keenay cunto ahaan waxaa lagu siinayaa bariis keligii ah oo biyo lagu kariyey oo basbaas lagu daray yaa cunto lagu siin bariis cad oo basbaas lagu daray basbaas baa lagu daray waa bariis cad guduud buu ka dhigay basbaaskii waa lagu soo hordhigay ka dhexgale waxaa laga yaabaa dadkaas Soomaaliyeed qaxaya inay bariis iyo hilib iyo subag iyo luqmad ay ka soo tageen haatana bariis cad iyo basbaas waa la siinaya waa siinaya raggii meesha markaa aan ugu imiday waa 2007kii bishii 11aad inay ahayd baan jeclaa waa gartay raggaan meesha ugu imiday rag baa hadda Maraykan joogo maqraati ii noqon karo hadda inkastoo aan teleefonkooda haynin wiil waxaan uga imiday reer Muqdisho ah oo bilo iga soo horreeyay oo bariiskaas iyo basbaaskaas wax kale aan uga dambeyn aan uga horreynin suu u cunay iyo afkaasi bayl cad noqday afkii baa go'ay diirkii baa ka mudxay calooshiisii daway basbaas iyo bariis keli oo markii lagu celiyo uu xajin kari waayay waasaas ninkaasi qori gubtay buu ekaaday dhoobnida madowga iyo afkii oo caddaaday markaan meeshii arkay baan naxay oon ishiri ma meeshana haddana kaa soo horraysay cabbaar baan joognay 2008 baa noogu soo gashay nin dadka Sacuudiga iyo tahriibta soo yaqaanay oo wadaad ah oo aad aan ugu ilaahay khayr ha siiye aan ugu faa'iiday baa wuxuu yidhi niyahow sidan kuma jiri karo bariis qaran oo basbaas leh kuma noolaan karee waxaan u tegaynaa maqaaxiyahan Suudaanta waxaan leenahay niyow liista noo sameeya lacagaan dalbanaynaa inta aan meesha joogno cuntana siiya buugana loo furo waagar dadkuna waa nin dee tahriib Sacuudiga iyo meelaha ku soo maray oo luqadii igu dhaamo oo wixii yar fahansan nin buu u tegay maqaaxi haysta wuxuu ku yidhi niyahow qof walaalka oo muslimaan ahay bariis iyo basbaas keli ah laba waqti weliba ma cuni karo dadkanagi waad aragtaa say u dhibaataysan yihiin aniguna gaas baan leeyahay waxa uma dhowaan karo inaad buug noo samayso oo nagu qortaan rabaa walaalow nin wanaagsan buu ahaa Suudaani ah waayahay buu yidhi hal waqti buu yidhi maalin walba hal waqti ka soo doonta meesha marka bahal fuul Suudaaniga ay yidhaahdaan digirta waaweyn ee madow ah aad waddanka looga isticmaalaa iyo laba xabo rooti ah yoona siiyaa maalinkii intaasaan kaga maaranaa bariiskii basbaaska lahaa aniga wiilkaas meeshii markaan joognay baa waxaa la yidhi 2008kii baa noo bilowday